Barasabka gobolka Sanaag mudane Axmed Cabdi Muuse Axmed Istabar maayirka degmada Cargabo Ismaaciil Xaaji Nuur ayaa u kala diray deegaanada xeebta gobolka Sanaag deeq raashin oo gaadhaysa 170 qoys kuwaasoo lagu samata bixinayo dadka ay abaartu ku saameysay deegaanada xeebaha gobolka Sanaag. Ilaahay waa mahadle maanta halkan waxaan isugu nimi gudaheena wadgelinta madaxda ee gudoomiyaha gobolku lacag yar oo hadhaaya oo ahayd barnaamijyadii oo loo qoondeeyey dhul baahi badan ka jirto oo buuraleyda ah ugu badan ayaanu halka diraynaa gabadhii ay taagan tahay raashinka saaran yahay horena waxba u gaadhin dhulka biyuuna biyo looma dhaamineen dhinaca buuraha wax horena ma gaadhin saas la isla gartay in loo qoondeeyo aad baan ugu mahadnaqaynaa insha allahu tacaala iminkana ودقائقيان وعيك قابلوا لك بالقرسينية إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي ومهدله. وحن ساكا هل كان كون ببحننا راشنكي لوجو تلاقي تاكل هذا حبها. راشنكاسو تردي السودان تهاي كون يبقول يتدوات قيس. أو كلا بقول حبها gobolka Sanaag raashinkan oo qorshe ahaan ka yimid lacagtii qaadhaanka ahayd ee 70 kun ahayd ee ganacsatada iyo culimadu taakulada u siisay gobolka Sanaag oo aanu biyadaamiskii mudnaanta ka siinay inay dadkaasi baahi weyn u qabaan raashin waxa halkan maanta taagan 13 gaadiida oo raran 13 ka gaari waxay sidaan 170 qoys walba waxa la siinayaa shub bariisa iyo shub sonkora iyo shub daqiiqa iyo caagad saliida qoysaska xeebaha ku nool oo dad fara badan ah xeebta dheerna uu gobolku leeyahay haddii ay meelaha qaar gaari weydo waanu ka cudur daaranaynaa insha Allah bidmillaahi kariim ilaahum baa baahideena dabooli kara ma garanayo intii maxaan ku raahdaa dhawaanaha kan xilli taakulayn la gaarsiiyo deegaamada xeebaha insha Allah waxaan isleenahay waa dhulka baahida ugu badan jirto waxaan dareensanahay inaanu buuraleyda ka boodnay oo buuraleydana insha Allah wixii Ilaahay keenaan iyadana la sugayno. Ismaaciil Bakayle telefishinka caalamiga San TV magaalada Cargabo.